kulanti wacan daawadaalkuna soo dhawaada wararka habeenimo ee warbaahinta ogaal qodobada wararka caawa aan ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona Turkiga oo soo farageliyay khilaafka badda ee Soomaaliya Kenya iyo waliba tallaabooyinka uu qaadayo uu shaaciyay Ra'iisul Roble hotelka Jazeera kula kulmay qaar ka mid ah mucaaradkii shacabka magaalada Muqdisho iyo waliba sidoo kale indhacade aqalka cad oo isagana shaaciye arrimo ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden qalalaasii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ee Eritrea lagu eedeeyay iyo waliba sidoo kale Asmaro oo iyadana arrimahaasi ka jawaabtay qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiisalayaan ku soo qaadanaynaa warka habeenimo ee warbaahinta ogaal daawadayaal haddii aan ku bilowno daawadayaal faahfaahinta wararkaasi aqalka cad ee Mareykanka ayaa war ka soo saaray wadaalo qadka telefoonka ku dhex maray markii ugu horeysay madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kenya Joe Biden iyo Uhuru Kenyatta madaxweynaha Mareykanka ayaana shalay telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida lagu sheegay war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka warkan waxaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta muhiimadda uu leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya Biden ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida ay Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado in uu Kenya kala shaqeeyo nabadda iyo amniga gobolka wada shaqeyntu Biden u ballan qaaday madaxweynaha Kenya waxaa qayb ka ah taageeridda mowqifkooda marka la joogo fadhiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo Kenya ay hadda xubin ka tahay sida war saxaafadeedka lagu sheegay madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hogaamineed ay Kenya ay uga jirto gobolka Geeska Afrika ee dhinacyada la dagaalanka argagixisada kobcinta dhaqaalaha wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo horumarinta la joogteyn kara ee dhan kastaba war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Uhuru Kenyatta sidoo kale ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadanimo ee ka sii xumaanaysa gobolka Tigray ee dalka Itoobiya iyo waliba baahida loo qabo in la joojiyo nafta baxaysa lana hubiyo galaangalka howlaha bini'aadanimada ee gobolka labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay baahida loo qabo iskaashiga in laga yeesho arrimaha kale ee la xiriira xasiloonida gobolka Geeska sida lagu sheegay war-saxaafadeedka uu baahiyay aqalka cad ee Mareykanka oo laguma sheegin war-saxaafadeedkaasi in labada madaxweyne ka wada hadleen arrimaha ku aadan Soomaaliya iyo waliba sidoo kale ciidamada Kenya ee kaga sugan gudaha Soomaaliya dhanka kalena daawada wasaaraha dalka ee xukuumadda ayaa waxa uu galabta magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Jazeera kula kulmay golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya fadhigooda ugu weyn uu yahay halkaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka xogaalo warbaahinta ayaana waxay xaqiijinayaan in xubnaha uu kulankaasi la yeeshay Roble ku jiro ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre Shariif Xasan Sheekh Aadan kuwaas oo ka maqnaa goobtii xalay lagu kala siixday heshiiska kulankii dhex maray golaha midowga musharaxiinta Ra'iisul Roble oo ahaa mid ay albaabadu xirnaayeen ayaana looga helin baa jiray xog faahfaahin dheeraad ah maadaama ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Roble ayaana lagu yiri wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa hotelka Jazeera magaalada Muqdisho kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay aragtiyada ku aadan xaaladda dalka inkastoo aan qoraalka lagu shaacin kulanka Roble iyo musharaxiinta haddana warka aan helnay waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaaraha markii uu la kulmay musharaxiinta kadib uu qaabilay qaybaha bulshada rayidka kuwaas oo uu la wadaagay aragtiyadooda ku aadan marxaladda kala guurka uu dalku ku jiro sidoo kalena kulankan oo horey loo soo shaacinin ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo xalay hotelka Diyaale ay ka heshiis kooban 6 qodob ay ku kala siixdeen Roble iyo midowga musharaxiinta sida ku cad heshiiskii xalay raaligelintii Roble kadib waxa uu xusid in xukuumaddu ay mucaaradka kala shaqeynayso sidii banaanbaxooda ay uga dhigan lahaayeen si nabada iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada dowladda sidoo kalena sawirada laga soo qaaday kulankii uu maanta hotelka Jazeera kula qaatay Ra'iisul Roble ayaa waxaa ku jiray Generaal Indhacade oo isagu horey u sheegay in dowladda aysan dalka ka jirin kadib xilli ay ciidamo isagu hogaaminayay la wareegeen taalada daljirka Daason ayna sheegeen inay ilaalin doonaan banaanbaxyada la qorsheynayay inay markaasi ka dhacaan taaladaasi Generaal Indhacade ayaa wixii intaasi ka dambeeyay waxaa la sheegay inay ciidamada dowladda ku raajoogaan isla markaasna aad loo raadinayay dowladda Turkiga ayaa waxay ka shaqeynaysaa sidaan warkaan ku heleynaba sidii Soomaaliya iyo Kenya soo keeni lahayd miiska wada hadalka si loo xaliyo dacwadda badda ee u dhaxaysa labada dal
iyadoo dacwadan ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaana booqasho ku imaan doona Muqdisho iyo Nairobi oraanta bisha soo socota ee Maars, isagoona kulmo la qaadan doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweyne Farmaajo Uhuru ayaa bilii la soo dhaafayba uusan xiriirkooda wanaagsaneyn, sidoo kalena waxay Soomaaliya u bareertay inay gebi ahaanba jarto cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Kenya. sida laga soo xigtay xogaala madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu aad u daneynayaa bal jiray in labada dal ay xal nabadeed ay ka gaaraan dacwadda badda oo ahayd baa yiri isha ugu weyn ee khilaafka labada dal u dhexeeyo. Turkigu wuxuu dhexdhexaadintani uga faa'iideysanayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya kala dhexeyso. sidoo kalena Turkigu wuxuu Kenya Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi oo ballaaran, waa arkaa laba dal oo door fiican ka ciyaari kara saameyntiisa qaaradda gaar ahaan geeska Afrika. maxkamadda ICJ ayaana dhawaan ku gacan saartay codsi ay dowladda Kenya markii afraad ku dalbatay in dib loo dhigayo dhageysiga dacwadda, waxayna balantu tahay in 15 bisha soo socotay Maars loo fadhiisto dhageysiga kama dambaysta ee kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya. labada dal ayaa biyaha ay isku haystaan lagu kala saari doonaa sanadkan gudihiisa, waxayna maxkamaddu kiiskan ka gaari doontaa go'aan aan raacfaan la qaadan karin. marka laga soo tago kiiska badda, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxaa ajendiisa ka mid ah soo celinta xiriirka xumaaday ee magaalooyinka Muqdisho iyo weliba Nairobi. dowladda Eritrea ayaa sida caadada ahaydba aad u beenisay eedeymo ku saabsan in militarigeeda uu ka dagaalamay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya inay dileen 100 qof oo ku sugnaa magaalada Aksum 2 maalmood ka tirsanaa bishii November gudahooda baa la yiri. warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in dilwadareed laga fuliyay 28-29 bishii November uu noqon karo faldambiyada ka dhan ah bini'aadanimada. hase yeeshee wasiirka wasaaradda warfaafinta Eritrea Yemeni Michael ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn. warbixintan waxay inteeda badan ku saleysan tahay markhaatiga ay bixiyeen 31 qof oo ku sugan xerada qaxootiga iyo Hamyadiid ee gudaha Suudaan ayaa lagu soo qoray barta Twitter-ka. ninkan ayaana sheegay in la ogyahay in xeradaasi dadka ku jira intooda badan ay yihiin dagaalyahanadii daacadda u ah xisbiga TPLF ee u cararay kadib markii lagu eedeeyey inay xasuuq baan ay ka geysteen magaalada Makikadra xilli uu horeysay oo uu dagaalku qarxay. Amnesty ayaana sheegtay in warbixinteedu ku saabsan xasuuqa ka dhacay magaaladaasi ay ka diyaarisay wareysiyo ay la yeelatay qaxootiga gobolka Tigray ee ka tagay ku sugan Suudaan, sidoo kalena ay khadka telefoonka ku wareysatay dad badan oo ku sugan magaalada goobjoogna ka ah dhacdooyinkani. hay'adan u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirro qalabka satellite-ka lagu qaaday oo muujinaya cadeymo ku saabsan qabuuro cusub 41 ruux ee ka badbaaday xasuuq iyo goob joogayaal ayaa bixiyay magacyada 200 oo ruux ay yaqaanaan oo lagu dilay magaaladaasi. warbaahinta ayaana sidoo kale la hadashay markhaatiyaal ku sugan magaaladaasi kuwaasoo bixiyay xog la mid ah tan ay bixiyeen dadka ay laga hadashay hay'adda Amnesty. qof ka tirsan shaqaalaha dowladda rayidka ayaana sheegay meydka wiilal yaryar iyo weliba rag ay toogashadu ku dileen ciidanka Eritreanka in muddo la aasinayna wadooyinka ay iska daasanaayeen maalmo, qaar badan oo ka mid ahna ay waraabayaal cuneen. wuxuuna tirada dhimashadu ku qiyaasay inay gaari karto ilaa 800 oo ruux, tiradaas oo la mid ah baa la yiri. sidoo kalena bixisay baadari wareysi siinaya wakaaladda wararka ee AB. baadarigaas aana warbaahinta tusiyay kaararka aqoonsiga ee dadkaasi weliba qabriyadii lagu aasimay dadkooda. dowladaha Itoobiya iyo Eritrea labaduba way beeniyeen in militariga Eritrea ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray. guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya ayaana sheegay in warbixinta Amnesty ay mudan tahay in si dhab ah loo qaato, iyagoona intaasi ku daray inay baaritaano ku wadaan eedeymahan. wasaaraha Itoobiya Abiy ayaana horaantii bishii November amar ku bixiyey in dagaal lagu qaado gobolka Tigray oo ay maamulkiisa gacanta ku hayeen xisbiga TPLF kadib markii xoogooda ay qabsadeen saldhigga ay gobolkaasi ku lahaayeen militariga federaalka. 30 November ayuuna baarlamaanka uu sheegay in aan hal qof oo shacab ah la dilin intuu howlgalkaasi socday. adeega isgaarsiinta iyo korontada oo ka go'an gobolka ayaa suurtageli weysay baa la yiri in warar madax bannaan ah laga helo dagaalka gobolkaasi ka dhacay. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal warka habeenimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.